hadashay xamaas oo dhahaysa isaga ayaa fashilinaya wada hadallada ee nabad ma rabo been buu sheegaya. haddaba qodobadaas ku saabsan wada hadalka iyo waxa la isku eedeynayana waan idiin faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa xaaladda guud ee Gaza, khasaaraha soo gaaray shacabka iyo halka ay wax marayaan. inta aan ku jirno barnaamijka warar dheeraad ah hadday soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. barnaamijkan waxaynu ku faaqidaynaa warar cusub oo soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa sheeko la yaab leh. muddo askariyaa dhintay, 2 dhaawacantay, 3 maanta ugu dambeysay 3 weeraroo kala duwan oo 8 helicopter ay ku degeen Gaza ayay waxay dhahdeen 3 dhimatay kaliya. waxyaabahaasoo dhan marka hadda runtiyaa la soo gaaray. waxaa jira machad istaraatiiji ah oo dhinaca amniga ka shaqeeya oo saraakiisha amnigu ay markaa warbixinta ka qaataan. wuxuu leeyahay khalaas askari ma joogto meesha, askar waa baabaaday. askartii wax dhintay, wax dhaawacmay, wax waashay intaas soo darsoomeen. waa in degdeg loo helaa 10,000 oo askari. 10,000 maaha, 10,000 maaha, waa casharaad, 10,000 ciidan degdega loo baxay. ciidankii waa lagu kala tegay. waxaa rabtiin qariya, waxaa rabtiin sameeya dheh, maalin waa soo sheegi doontaane dheh. falastiiniintu hadda ka hor waxay dhahdeen waxaa rabtiin qariya, annaga taangiga aan gubno ay waxay leeyihin halaa dhaawacmay. taangiga meeqaa ku jirta? ma robadaa ku jira, rumuud maa lagu hagaa taangiga? dadkii ku jiray aaw waa ku dhalaaleen. waxaasoo dhan hadda marka maxaa la marayaa? askartii khalaas waa baaba'een. 10,000 ayaa loo baahan. qayladaan aa loo diray dowladda. nimankan wadaada diimeedka ah oo askarta diidaya hala soo qoraan layidhi askar ma lahaay meeshaan. haye ma calooshad u shaqaystayaala keensanaynaa? sheeko waa la socod. haddaba warbixintan oo goordhow Aljazeera ay daabacday ayaan idinla wadaagayaa. machad Israa'iil ayaa wuxuu sheegay ciidanku inay degdeg ugu baahan yihiin 10,000 oo askari oo cusub. machadka daraasaadka amniga qaranka Israa'iil ayaa waxaa la sheegay inuu si rasmi ah u sheegay in ciidanku ay soo wajahday xaalad aad u daran oo askarta ah oo taariikhda aan weligeed Israa'iil soo marin. askartii oo baaba'aysa. haddaba waxa uu sheegay machadku in ciidanku ay degdeg ugu baahan yihiin 10,000 oo askari, iyadoo ciidanku ay ku socoto dhiigbax dagaal dhinacyo kala duwan ah. haddaba marka waxaa la sheegayaa machadku ku baaqayaa in nimankan wadaada diimeedka ah la soo qoro, dadka caadigana ay isqoraan. marka waxay keenaysaa haddii nimanka wadaada diimeedka la qoro ayuu leeyahay machadku inay markaa dhiirigeliso dhalinyarada kalena inay iyaguna ciidanka kusoo biiraan. waxyaabaha la yaab kale ee taqriirka ama warbixinta ku jira waxaa ka mid ah askarta Israa'iil waa la jeclaan jiray Gaza ka hor.
gabadha askariya ahay wiilka askariyan ahay dhaqaalaha ay qaataan iyo bulshada iyo xogaha way ka tilmaan lacag fara badan ayay Israa'iil gelinaysaa moogtahay ee qarashka ciidanka marka ciidanka askari way qofka dila qatar hadda wax askar raba male askar ما kuma jiro ما قالت التي الياسين العون كان هبل بحي هبل كي اسكو فصل كذا واتي مid waa waash sida maqlaayeen hadda markuu waxa leeyahay askar degdeg loo baay wadaad diimeedyadan askarta aan rabin la soo qoro sida wiilasha kale ee caadiga ah iyaguna askartu qortaa laakiin hadda wiilashii lama qasbi karo waxay dhahan kuwa badda waa diideen anaga isku midana askar maxaa ka doonayna marka nabaka mushkiladaas haysata waana maxadka istaraatiijiyada amniga qaranka leeyahay wasaaradda gaashaandhigga hoos yimaada isaga soo saaray taqriirkan marka waxyaabaha nimankanu musiibo waa ku dhacday laakiin wuxuu se u qarsanayaan haddana meel ay baashu ka soo baxaysa laga ogaanaya waaya qodobka halkaas ay kaga gudbaynaa waxyaabaha kale ee soo kordhay waxa kamid ah Netanyahu iyo kooxdiisa iyo qolada uu u dirsaday dooxa waxay leeyihiin wada hadaladii xogaa waa ka tanaasulna qaaran ka tanaasul maxaa ka tanaasulsheen aalin marka hore waxay yiraahdeen rafax qayb kamida dhanaan qaadanayna ma ka baxayno halkan hadda marka waxay yiraahdeen meel 5 kilomitir ay noo qorsheysneed hadda 2 kilomitir ka dhigin oo meesha madika askar aalin nimanka Xamaas waxay yiraahdeen meesha idinku ina meesha ka wada baxdaan la rabaa 5 kilomitir aan ku jirnaa waa ka noqonaynaa 2 kilomitir ma tanaasul Allah kaas waxa tanaasul maaneen meesha hada nabad rabtaan imaado hadaba marka arintu soo sheeko walaal meesha ka socota telefishinka al-Arabiya wuxuu leeyahay mas'uul Israa'iili oo sare wuxuu sheegay inay tanaasulaad ka sameeyeen arinta ka bixitaanka ciidankooda Gaza marka qaybo kamida inay marka ka tanaasuleen marka qaybahaas waaye qaybaha uu leeyahay rafax meelahan meel 5 kilomitir ila 2 kilomitir aan soo sikanay marka waxay taagay meesha ma ka baxaysaan ma nabad ma rabtaan waxaan 2 kilomitir aan baxsho kilomitir ma dhulka adika iska leh 2 kilomitir baxaysaa 5 kilomitir soo baxaysaa marka isla marka Netanyahu iyo ragiisu marka waxay leeyihiin tanaasul sameeynay baashu marka hawshaas halkaas maray Xamaas marka war soo saartay ayaditus hadaba Xamaas waxay leedahay waxay ku eedeysay Netanyahu inuu isagu yahay mid ka fashilinaya wada hadallada u fiirsada maanta oo isniina ayay war rasmi ah soo saartay Xamaas waxaan wax quraafada tirnikan nabad ma rabo waxa uu fashilinaa wada hadallada laakiin been yuusan dadka u sheegin waxbaan ka tanaasulay wuxuu ka tanaasulay mar dhulkeeni uu ka dhex tanaasula wax shaqeynaa ma ahayn marka waxyaabaha la yaab kale marka oo sheekada Netanyahu waxa leeyahay inuu sanabad rabin ka shaqeynaysa waxa kamid ah wargeyska televisionka Sky News leeyahay wuxuu leeyahay sheekada ninkan inuu wax fashilinayo waxba ka jira Xamaas walaal ninkan wax fashilanay anagu warkeenu waa cad yahay ka bixitaan dhameystiran xabad joojin dhameystiran gargaarka oo dhameystiran meel walba laga soo geliyo waxa qabyaadan ma qaadanayno ninkan marka maalin xaggan jooga maalin xaggan ka baxa u leeyahay marka ay tus marka sheekayaab leh oo hadda Sky News ay qorayso waxa leedahay Netanyahu wuxuu sheegay Smotrich wuxuu u sheegay ninkan Smotrich oo wasiirka maaliyadda inuu markaa dib u bilaabi doono dagaalka Gaza 60 maalmood xabad joojinta kadib mawjida wuxuu leeyahay waxba walwalin 60 maalmood xabad joojinta sameeynaa maxaabiista inoo hayaan qaaraan ka soo qaadanaynaa haddana dagaalkan ku laabanayna marka dagaal lama joojinayo leeyahay ha ka walwalin waa ka ballan qaado leeyahay asaga ibn Ghafiir wuxuu leeyahay 60 maalmood ila wada bis ninka taraam aan waa ku qancinayna xabad joojinta 60 maalmood nimankan Xamaasana 60 maalmood gudihiisa 20 qof oo nool aan ku tuhmayna inay hayaan 10 hadaan 60 kan kala soo baxno 10 kala u haray haddana jukaatala kale hawl kala la bilaaba haddana 10 kala saasoo dagaalkana ma ka joojinin marka yaa la gaala nimankan Xamaasa iyaga ka horeeyo wax kasta marka waxay taageen soo wad ninka wax fashalina adiga
annaga waxaan dhammaystirnayn maba noola imaan kartid leey marka qodobkaas isaguna halkaas kaga gudbaynaa wadahadaladii halkaasay barayaan Israa'iil waxay leedahay waxba ka tanaasulay Xamaas waxay leedahay wuxuu ka tanaasulay bale isaga waxa fashilinay marka ninkii Trump waxa leeyahay wuxuu Netanyahu wuxuu ku yiri ilaa toddobaad kadib heshiis soo dhameynaa Trump marka waxa uu leeyahay leeyri toddobaad kadib heshiis la gaara Netanyahu u sheegay wuxuu dhahay ilaa toddobaad si nimanka ku xalila soo leeyahay marka qadar xayisiisa kadib waxaan galeynaa xaaladda Gaza ee caawa sida ay tahay iyadoo maanta la sheegay in nimankiisa xul loogu dubtay barnaamijkayga galabta ayaan aad ugu faahfaahiyay marka halkaas ka daawan doontaan hadda waxa xaaladdu halka ay marayso ayaan galeynaa xayisiinta kadib sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6th Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda mutaashahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya quraanka hab casri online ah maadooyinka ka bar karto waxa kamid ah quraanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shariicada sidoo kale way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda dugsiga markaas Daaru Taqwa kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan barnaamijkeena habeenimo isniina oo talaada ay soo galayso hadaba barnaamijka waxaynu maraynaa qaybihiisa ugu dambeeyay qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa xaaladda Gaza waa sidee 3 weerar maanta dhacday barnaamijkayga galabkan ku faahfaahiyay sida nimanka loo galay maanta nagta looga saaray helicopteradu waxa ay daabulayeen ilaa 8 helicopter iyagu laakiin waxay sheegtay 3 inay ka dhimatay tirana ay ka dhaawacmeen wixii dhaawacmana ma aysan sheegin marka faahfaahin badan lagama hayo 3da dhimatay masaakiila ama wax kale wali lama faahfaahinin marka laakiin al-Qassam waxay leeyihiin iyagu taangina waa gubnay gaari ciidan siday isaguna waa gubnay مع عيدن كيسي أقبل لي ناقلات جنود الراباشان أو أسكرت قاعدة أو سيدا قفلا أو مارت بيبها عمله أيضنا دكم داكم ما كدقنا ده مركب ماشا واللوغو قالين مكا ولبا 3 ميل أو كردون أيان نمكا لوغو ويرارين marka iyaguna marka maxay sameeyeen saacadii la soo dhaafay iyaguna iyagu markii fagaaraha lagu soo kululeeyo dadka rayidka ay baabi'iyaan marka dadka masaakiinta iyaguna dhibkaas ay qabaan hadaba marka aan idin soo caawo wararkii ugu dambeeyay oo ay soo saareen hay'adaha caafimaadka 60 qof ayaa shahiiday marinka Gaza laga soo bilaabo ilaa Saakay hadaba isbitaalada ku yaala magaalada Gaza ayaa waxay sheegayaan in maanta oo isniin ah 60 qof ay shahiideen ilaa Saakay laga soo bilaabo weerar kala duwan oo ka dhacay Gaza oo Israa'iiliyiintu ay soo qaadeen kaas ayagu dadka ku leeyahay diyaaradaas waxa salule laakiin maalinkii dhulka la isugu yimaado qoryaha la qabsana macataangiisa la fuulaa nimanka taangi ma wataan hub iska socda baato dhan ma wataan rasaastoodu waa xisaabsan tahay nimanka xisaab waaliya la wataa waa dawlad dhan laakiin dhulka ma la isku helay nagta laga saaraa maxay tila ku dhigeen marka erkaasay magaalada ka rusheynayaan haddana waxay beegsanayaan meelaha teendhooyinka iyo dadka barakacayaashii ay joogaan waxay rabaan nimankan inay waxa xanuujiyaan oo Xamaas ay kacdo oo ay markaa tiraa waxaan waa iska baxaynaa dadkii maadaama la leeyay laakiin wax socdo male dadkii xataa Xamaas naga baxa ma dhaayaan waxay ogyihiin waxa bedeli doona inay gumaysi tahay marka gumaysi inaad dhimataa ku roon ka wadaan marka barnaamijka caaw inta ayaan ku soo gabagabeynayaa
fadlan haddaadan daawan barnaamijyadeeda subaxnimo iyo kii galabnimo iyaguna mawduucyo aad u xiiso badan ayaa ku jira. intaa ayaynu ku joojinaynaa barnaamijkeena. fakar iyo aragti waxaad hayso dhoo soo qor. haddaad cusub tahay subscribe-ka ka iloobay youtube-ka, facebookna follow garay, barnaamijka la garay oo share garay. asxaabay nabadgelyo.